Abarakoodii iyo barkii duurnimo ee maanta ayaa ciidamo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya waxa ay weerar ku qaadeen hoyga Muqdisho uu ka degan yahay Senator Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiida kaasoo ah mudane ka tirsan aqalka sare ahna gudoomiyaha guddiga dastuurka ee labada aqal. Senator Cabdi Xasan Cawaale oo ka maqnaa hoygiisa xilligii weerarku u dhacay ayaa daqiiqado kadib kolkii weerarku soo afjarmay gaaray gurigiisa. Senatorka ayaana warbaahinta kaga warbixiyay sida ay wax u dhaceen. Maanta markay ahayd 1:20 daqiiqo gurigayga anigoo ah Senator Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid oo ah gudoomiyaha guddiga dastuurka ee baarlamaanka labada guddiga maaragtay dastuurka labada aqal ee baarlamaanka labada maaragtay labada baarlamaan gurigayga oo aan deganahay ayaa waxaa soo maanta weeraray ciidan ka socda ciidan dawladeed. albaabka hore ayay baabuurka ku soo jabsheen ganjeelka kadibna waardiyihii bay qoryo ku qabteen qoryihiina ka qaateen. aniguna shaqaan ku maqnaa golaha aqalka saraan jiray. waxaa loo soo galay waxaa loo soo galay gudaha ayaa loo soo galay. markii loo soo galayna waxaa gurigii baa loo galay gudaha waa la baaray waa la jebiyey dhammaan albaabada meel walbana way galeen armaajooyinkiina way soo daadiyeen wixii ku jiray qolalkii guriga dibadda banaanka qolalkii dibadda ku yiri iyo qolalkii gudaha dadkii ku jiray oo dhan way hansaab gareeyeen. taleefanadii bay xaaskaygii iyo gabadhaydii ka aruursadeen. xaaskii oo masqusha ku jirtana masqushii ay ku jebiyeen oo ugu galeen ciidankaasi. baaris kadib haddii intaasi markay dhacday anigoo maaragtay ma garan karo sababta arrimahaasi aniga ay ku dhaceen. anigu ma garan kara ilaa hadda. cidda waxaan samaysana informationkii ugu horreeyey xaaskayga markay soo wacda kadib waxay soo wacay ninka taliyaha nabad sugidda ka ah gobolka Banaadir oo la yiraahdo Saadiq. ciidankaasi waxay ahaayeen ciidan laga soo diray ciidanka Imaaraadka ayay ahaayeen ayuu yiri. laakiin waxaan anigu u cadaynayaa sida ninkaasi ii sheegay ciidankaas ciidan dawladeed buu ahaa. wixii intaa ka duwanna haddee baarista ayaa lagu ogaan doonaa. ma raba intaas inaan dhaafo. waxaan rabaa ka codsanayaa meediyadu inay guriga gudaha galaan. dhanka kale war lagu soo qoray baraha kala duwan ee madaxweynaha dowladda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku leeyahay aaladaha bulshada ku kulanto sida Facebook iyo Twitter ayaa amar degdeg ah lagu faray taliska sare ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya inay baaritaan degdeg ah ku sameeyaan falkii maanta lagu la kacay Senator Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid. tilaabo degdeg ah ay ka qaadaan cid alaaliye cidii ku lug yeelata falkaasi. dhanka kale wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow ayaa isagana bartiisa Facebook waxa uu ku soo qoray in baaritaan degdeg ah lagu sameyn doono cid alaaliye cidii ka dambeysay weerarkii maanta lagu qaaday hoyga Muqdisho uu ka degan yahay Senator Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid. weerarkan maanta lagu qaaday hoyga Muqdisho uu ka degan yahay Senator Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid ayaa imaanaya xilli weli ay taagan tahay xiisadii ka dhalatay weerarkii 18 bishan lagu qaaday hoyga Muqdisho uu ka degan yahay siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur Warsame.